في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. intaa kadib mushkiladeenna walaalayaal maanta haysato dadka muslimiinta guud ahaanba innagu aynu ka mid nahay iyo qaaraddan aynu ku noolnahay afrika la yidhaahdo mushkiladda haysataa waxa weeyaan mushkiladda la yidhaahdo qabaliyada. weliba innaga waxay noo sii dheer laba arrimood oo aan isqabanayn baynu isa saarnay marka nidaamkeennan doorashada iyo siyaasadda la wado. midi waa qur-aankii waa la iska dhaafay horta, iyo habkii diiniga la eegayay la raacayay isaga waa la iska weydaartay oo gaaladaa dadkii waxay u waxyoodeen idin anfici maayo casri maha iska dhaaf waa yeedaale. marka waxaa la doonayaa in la isqabadsiiyo qabyaaladii iyo qaanuunkii gaalada oo aad garanaysa wixii dimuqraadiyadda la odhan jiray iyo codkaa cidda u badataa halkaasi waa meel waa qaanuunkii gaalada, waa kuwa inoo soo qora inagu muraaqabaynaya inagu eegaya. midina waa qabiilkii aynu hore u lahay ee ardaagii reer hebel. marka waxaanaynu la qaylinayna inaynu fahamnaa muhiime labadiiba isqaban waayey. qaanuunkii meeshuu maraya oo gaaladii lacagta laga soo qaaday baa inaga eegaya. innaguna niyaddii waxaa ku jirta reer hebelna markoodii ha qabtaan. reer hebel maantay u leeyihin, kuwa kalena berrito, kuwa kalena saa dambe, kuwan inay kuba ceshadaan bay rabaanba. kaasina meeshuu yaallaa markaa kii la niyaysnaa ee u niyood ahaa iyo kii ifka yaallay halkan inoo qornaa labadiibaa isqaban laha. marka waxaanoo qaylo ahee maqlaysaa dee intaa labadaasoo lagu sii daray qaxwii la kala qaadanayeyna qaxwo badan iyo manfaco iyo maalna waa la kala qaata. marka qaanuun loo geeyey qabiil iyo qaxwihii lasii kala qaadanayey yusaawi wuxuu la mid yahay qardoofo iyo qaylo dambe. natiijaduba waa intaa markaynu soo ururinno taa weeye. haddii la qaadan lahaa qaanuunka gaalada oo one man one vote ay noqon lahayd cidduu doonaya ha noqdo, waxaa soo bixi lahaan kolba ka u codbata oo loo eegi lahaa. hadduu doonayo weligiiba gobolun ha ka soo noqnoqdo siday gaaladuba yeelaan oo dee nimanka caddaankunbaa weligoodba ku soo noqnoqdo haysto weliba kiristankana madhab gaara ah. haddii qabiilkeennii aynu noqon lahayna waynu isfahmi lahaynoo dee baasha ardaayaa loo qaybin lahaa 3 iyo 4 iyo 5 iyo 7 midkii la doonaha la gaadhsiiyo. dabeedna waxaa la odhan lahaa duca qabayaal xilku meertaha inoo ahaado. doorkan reer hebel baa hayey, reer hebel iyo reer hebel oo isu tegayna way ku xigayaan. musalsalkaasoo luqad la isku afkarta ah sidii berigeennii hore ee bilaa qaanuunka ahayn wax lagu qaybsan jiray. taasina wax la fahmi karaa ahay. waxa iminka la fahmi la'yahay ee guud ahaan soomaalidu meel ay joogaanba ka qaylisiinaya waa labadaasoo isxambaar ah, qabiil iyo qaanuun oo isku rakiban oo bilaa qur'aan ah. marka qayladani markaynu labadaa kala qaadno ayaa ay demi doontaa. inta ka horraysa waa milil guudkii baa la dhahayaa. taasi waa mid weeye. midhka kale meesha yaallaa waxa weeye ummaduhu qaybina masaalix bay u socotaa, qaybina mabaadi. maslaxadda iyo mabduna way kala duwayn. dadka muslimiintii mabda bay ku socdaan diinta in la kor yeelo. markii diinta ilaahay la kor yeelo oo siyaasadda ay diini hoggaamiso oo siyaasaddu ay diinta u danaynayso, waxa hubaala dadka iyo dalkuba way hagaagayaan iyo caalamkuba. taasi waa mabdii ilaahay rususha uu ku soo diray, uu ku khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. khulafada aynu taariikhdooda ka warramaynaana mabda'aasaa lagu socday. haddii mabda'a la weydaarto waxa weeye waxaa intaa loo gudbaa ku sii xigaa waa maslaxad. maslaxadda waxaa la yidhaahdaana muntaha ma leh, meel ay ku dhammaato ma leh. koox hebel lama dhargin karo, shakhsi hebel lama dhargin karo, qabiil hebelna lama dhargin karo. ilaahay baa ka warrama wuxuu uhi low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum. nebi maxamedoo dadkan ilaahay uu kuu soo diray haddaad u qaybin lahayd adduunyo badan iyo maslaxad iyo manfaco oo dhulka muggiya isumaad geyn karteen quluubtooda. laakiin ilaahay baa quluubtooda isugu geeyey qur'aanka iyo waxyiga oo dadkii carbeede boqolaalka sannadood iskumaadaya boqnaha isgoynayay in yar baa marka iimaan heleen ay ku dhergeenay isku afkarteen. marka halkaa waxaa ka muuqatay qadiyadda maslaxaddu muntaha male iyo meel ay ku dhammaato. taasina waa tay naga guuxaysay aad inoogu weyn. ama xisbi hebel baa xiimaya, ama shakhsi hebel baa maanta kursiga la saaraya, ama qabiile hebel baa lagu riixayaa. waa maslaxaddii mabdi'ina meesha ma yaalo.
markaynu cudurka sidaa tashkhiis ugu samayno ilaan waxaa laga maarmaana cudurka in horta shaybaadh lagu sameeyo dawadu waxay noqotaba marka tashkhiiskaa kolkaynu hayno kadib aynu u soo noqonno mushkiladdan iyada ah doorkii jimcadan tii ka horraysayna waynu ka hadalnay waxa laga maarmaana laba arrimood isdhegaysi horta waa muhiim oo waxaa la yidhaahda isdhegaysigu wuxuu keenaa in la isna fahmo la isuna joojiyo ayuu keenaa marka dadka cabashada loola yimaado sida dee guddidan doorashooyinka wax dhexdhexaadinaya taladaynu siinaynaa waxa weeye horta waxa dhegaysiga la yidhaha inay dhegaystaan tashkhiisulmushkila la sameeyo cidda cabanaysaana mushkiladooda tashkhiis ay ku sameeyaan qoraal lagu soo sameeyo la yidhaha waxaannu ka cabanaynaa waa waxaa kadibna diraasad lagu sameeyo waxa la dhowrayaana maaha gaalada ina eegaysa ee la ku dhaqsada jawaabta si aa magac u heshaan mana aha waxyaabo kaleoo ku xeerane waxa weeye dhiigga muslimiintana in la dhowro midnimada ummaddana la ilaaliyo labadaasaa aad inoogu weyn marka la isu joojiyo la isla hubsado cidda cabanaysaana cabasho dhaba ay soo gudbisoon canaad ku jirin markaa waxa hubaala in natiijo la gaadhi doono la isla bisleeyo la isdul fadhiisto aad la ysula eego daruurina ma aha wixii la sheegayaba in iclaamka iyo warbaahinta laga sheego warbaahinta wixii laga sheegaa wax badan buu fasahaadiyaa dhinac kastaba ha ka yimaadee oo mudaaharaaadyadan iyo shiidkan iyo marar badan baa kelmad la yidhi ay sabab u noqon kartaa wax badan waxaa muhiima intaan warbaahin la isla gaadhin in la isla bisleeyo qaanuunkii yaraa la kala qortay caanteynka in hore u soo sheegnay hoos loo eego wixii lagu heshiiye la wada saxeexay hore loo eego dadka eegayaa dad tudhaale la ay yihiin arrimaha haddii la isla eego waxaan rajaynaynaa mushkiladda xaaliga ee hadda taagani taa hore u niyoodahay haba iska jirtee bal tan iminka ee taagan inay soo dhadhowaato sidaasaynu ku talinaynaa waxaa kale aynu sii xusi lahayn dadka ama wadaadada ah wadaaddo badan baa jiroo cilmiga akhriyi jiray oo xarakaadka u madaxa lagu yaqaanay haddana qabaa'ilka la kala safan balaayo af lagama dhowree waxaa jira dad badan oo ganacsato ah oo maaragtay iyaguna taageeraya oo dhaqaalihii bixinaya waxaa runtii ku xisaabtan mudan dadkaasi arrinka ay bixinayaan iyo adduunka ay bixinayaan iyo awoodda ay bixinayaan miyaanay keenaynin in ummaddii ku qaybsanto haddii dhaqaalahaad bixinaysa iyo tamartaadii awooddaadii layskuba dilo dhiig ka dhasho adiga ilaahay ku weyddiiye aakhiro wudha xoog iyo xoole iyo aqoontii aan ku siiye meeda iyo diintii xaggaad la martay qofkan ise marka uu qabiilo gaara la safanaya qabaa'ilka kale waayo miyaanay iyagu walaalihii hayn miyaanay tolkiiyo xididka ku jirin masheey ama yuhuudba waxaa muhiima qofka diinta leh inuu dadka u noqdo mid u dhaxa sidoo kale qofka ganacsadaha reerkooda qura waxba kama iibinaye waa inuu isaguna ila ummaddiiba uu u wada baahan yaha wax ka iibinayaa waa in la xajeclo guud ay jirto oo tan alif intayda iyo bahdayda iyo baabka noocan ee saa u soconaya kala jiidashada ee aan la isba arkayn ee qofba daan ku xidhan yahay qofba xisbi ku xidhan yahay qofba xaafad ku xidhan yahay xayraanka noocan in laga baxaa ayaynu u baahannahay oo qoladan u tegi karto kooxdani kooxdan oo wadaadkan u tegi karo mutacallimkan maalqabaankani kii kale la kulmi karo ilaa haddii inta yaruu isugaya ka kala yaacdo karis xuniyana wax kula kii reerkoodu intan u ururin maayo isagiina wuu ku guro wuu ka kala tuuray haddii kii wadaadka ahaa ee qoladiisan iyo xisbigiisan iyo ninkiisan la saftay magacuu ka dhintay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba muxuu macaash waxaa ugu qiimaha badanla la dhigtay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda waa magac iyo sharaf weeye cabdilaahi suldaan timcadde raximahullah qabiiladiisi iyo qabiilo kalea islaayo reer hargaysaah reerkoodii waxay idhahaan waar nagaga rid reerkaasba waa kuwa soo gabiya iyo kuwooduye bal adiguna nagaga rid dugsilmale qabyaaladii buu tiriyey oo uu ku wacyigelinaya reerkoodii dabada ka wada iyo kuwii kale islaynayeen uu ka dheereeyey ciddii kaloo dhanba waa adiga arkaya meel walba gabaygiisi la soo qaadanayo marka waxaynu leennahay waxaa laga maarmaana caatifadan yar caanteynka ah waxa aynu sheegayna ku salaysan intoo laga soo gudbo inuu qofku u tudho tiisa adduunyada iyo ta aakhiraba ta ummadda iyo ta ilaahayba oo dabeetana indha furan iyo caqli caatifadi aanay hoggaaminaynin oo miyir qaba arrimaha lagu eego dadkuna intaa ay deggan yihiin ama ay nabad haystaan 20 sano imika halkan dagaaladii waxaad iska joogsadeen horumar baa la sameeyey dhinac diineed iyo dhinac dunyo oo soomaalida kale kuma jeeranayso adduunyadii kuma jeeranayso haddaad reer hebel intoo tidhaahdo qolo waliba ay laabta iska garaacdo oo dadka dib ay u laadaan dee dhan walba waa lagu qadaya saa daraaddeed waxaynu leenahay hana la isu joojiyo wax saxana ha la isu sheego hana la isu garaabo kadibna wixii daw iyo gar noqda
حق دراءها جيرنا ماشى هلقى سارة وحي حقنا هلقى قرعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب